degmada Buurtile lagu qabtay xaflad lagu hambalyeeynayo madaxweynaha cusub ee dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay nabadoono ismo ganacsato aqoon-yahano afarta xaafadood ee degmada Buurtile ugu horreyn waxa xafladaasi ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka iyo nabadoonada degmada Buurtile ayagoona soo dhaweeyay madaxweynaha cusub ee dowladda Puntland isla markaasna ka rajeeyay inuu ka dhabayn doono ballanqaadkiisa xafladan sidii horeyba loo sheegay waxay ku xusan tahay u dabaaldegid soo dhaweyn rayrayn madaxweynaha cusub oo maamul goboleedka Puntland shalay loo doortay inuu 5 sano soo wado haddii Rabbi idmo Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha waxaan leenahay soo dhawow uga hambalyeynaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waxaan uga hambalyeynaa ku bogaadinaynaa ugu ducaynaynaa 5 sano ee soo socota ee Ilaahay uu ku guuleeyay inuu Puntland si xaflad ah oo wanaag badan baa ugu soo dhaweeyay kalsoonidii shalay lagu soo dhaweeyay bayna maanta reer Puntland ku qabaan sida cad waxa way reer Puntland ay ku ogol yihiin waxaad ka ballan qaadir ka suugayaan wixii baahiya ah oo la qabay Puntland baahiyaheedu banaanka markaa joogtay intaan madaxda qanqon wax badan baa ku muuqday madaxweyne waxaan leeyahay wixii ku muuqday markaad gashidna insha Allah waa ku muuqdeen lii bogaadin isoo dhaweyn baa uga jeedinayna madaxweynaha cusub ee dowladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani hadii aan ahay haweenweynaha iyo aqoon-yahanka degmada Buurtile doorka haweenka sida wada ognahay ba 66 ka xildhibaan ee laga soo doortay Puntland waxa ku jirtay hal haween oo kaliya ta marka insha Allah xukuumadda soo socota waxaan ku bogaadinaynaa madaxweynuhu soo dhisayo in laga soo dhiso doorka haweenka ay haweenku ay ku yeeshaan kaalin mug leh idinkan kala guud Soomaaliyeey gurmada garweyna qaato gash walba dalaal oo xeelan goyn iyo beeraha garaac gurku gaaro gurigeena diiwaamiya sidoo kale waxa halkaas ka hadlay aqoon-yahano gudoomiyaha dhalinyarada guusha soo raaciyo gudoomiyaha qabanqaabada ayagoo dardaaran iyo duco u soo jeediyay madaxweynaha cusub ee dowladda Puntland iyo ku-xigeenkiisa waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan farxadda la qaybsado oo la qaato degmadeedii iyo bulshadeedii oo aad iyo aad maanta ugu faraxsan madaxweynahooda iyo isbeddelkii ay dadku sugayeen oo dhacay maadaama Puntland ay ka dhiceen waxa kale oo fursadda madaxweynaha laga sugayay ka mid tahay waxa weeye nidaamka axsaabta badan oo dadka reer Puntland aad iyo aad ay u sugayaan runtii aad baan ugu faraxsanahay xafladan quruxda badan ee agaasiman ee lagu soo dhaweynayo looguna hambalyeeynayo madaxweynaha dowladda Puntland 5 sano ee soo socota mudane Saciid Cabdullaahi Dani ilaahay maadi weeye dowladda Puntland 20 sano ay jirtaa 20 sano ay jirtana nabadda iyo barwaaqada iyo hadii Ilaahay ku rabiseelka dowladeed waxa laga arkay doorashadii shalay ka dhacday hoolka baarlamaanka ee xarunta caasimadda dowladda Puntland ee Garowe muhiimadeedu iyo ajandadeedu waxa weeye u dabaaldegid taageerid muujin farxadeed madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani inaanu dhaano madaxweyne reer Buurtile waa garbahaaga oo garab taagan yihiin shalay markaad loobinka iyo tartanka iyo electionka ku jirtay waxay ahaayeen bulshada ugu mug weyn ee runtii la dhacsanayd rabtay fikradaada iyo aragtidaada aaminsanna inaad ahayd ama aad tahay qofka Puntland ku habboon runtii Ilaahay subhanahu wa ta'ala aragtideedii iyo fikradeedii Ilaahay uu nagu guuleysay Xamdi Cabdi Casiis Maxamuud Somali News TV magaalada Gaalkacyo